Waxaad fadhidaa maqaaxi oo ku xiran wifi bilaash ah. Waxaad furaysaa laptop-kaaga. Dadka kale ee kugu xiran sidoo kale way furayaan. Maxaa dhacaya haddii qof miiska ku xiga si qarsoodi ah u baarayo shabakada, isagoo raadinaya albaab furan sida remote desktop protocol oo ku jira computer Windows ah oo nugul qalab awood leh oo la yiraahdo Hydra. Hackerku wuxuu bilaabi karaa weerar brute force ah isagoo isku dayaya username iyo password ilaa uu galo. Videogan waxaan isku dayaynaa inaan noqono hacker sharci ah. Hackerkayga waa Kim. Wuxuu isticmaalayaa Kali Linux oo ah systemka ugu caansan ee lagu sameeyo tijaabada amniga. Bartilmaameedkiisu waa computer Windows 10 ah oo ay isticmaasho Sally. Iyadoo aan ogeyn in remote desktop uu furan yahay, aan eegno username-ka Sally isticmaasho. Si taas loo sameeyo, waxaan furaynaa command prompt oo qoraynaa who am I. Waa natiijada. Waxaan aragnaa username-ka waa Sally, computer name-na waa desktop Windows 10. Marka xigta, aan hubino in remote desktop uu shidan yahay. Tani waa adeega uu Kim weerari doono. Waxaan furaynaa settings, kadibna waxaan qoraynaa remote, kadib waxaan gujinaynaa allow remote access. Daaqad settings ah ayaa furmaysa. Halkan waxaan aragnaa in la ogol yahay remote connections. Taas macnaheedu waa RDP waa shaqeynaya oo uu aqbalaya connections. Qaybta computer name sidoo kale waxaan ku aragnaa desktop W10. taas oo la mid ah wixii aan horey u aragnay. Aan soo koobno. Computerka Sally remote desktop protocol waa furan yahay. Username waa Sally. Waxay ku jirtaa isla wifi-ga uu Kim ku jiro, sida caadi ahaan uga dhacda wifi-ga dadweynaha ee cafe ama hotel. Hadda uu computerka Sally uu furan yahay, aan u wareegno systemka Kim ee Kali Linux oo aan aragno sida uu u isticmaalo Hydra si uu u sameeyo brute force attack isagoo ogaanaya labada username-ka Sally iyo password si uu u galo computer. Kim ma yaqaano IP address-ka network siiyay computerka Sally. Taasi waa wax ugu horeeya ee uu u baahan yahay inuu ogaado. Waxa kaliya ee uu og yahay waa inay isticmaalayso computer Windows ah. Wuxuu aqoonsaday inverse-ka desktop-ka oo uu yaqaan oo ku yaala shaashadeeda isagoo ka arkaya dhinaca kale ee cafe-ka. Si uu u bilaabo, Kim wuxuu hubiyaa IP-giisa si uu u fahmo subnet-ka uu ku xiran yahay. Ku jira cali machine wuxuu furaa terminal oo qora IPA. Amarkan wuxuu muujinayaa dhammaan network-kiisa, inverses iyo IP-yadooda. Wuxuu arkaa in computerkiisa loo qoondeeyay address-ka 192.168.125 taasoo ka dhigan inuu ku jiro 192.168.10/24 subnet. Hadda oo uu og yahay subnet-ka, tallaabada xigta ee Kim waa inuu iskaan gareeyo dhammaan network-ka gudaha si uu u helo qalab leh remote desktop furan. Remote desktop wuxuu ku shaqeeyaa port 3389. Kim wuxuu iskaan gareeyaa dhammaan network-ka gudaha si uu u helo qalab leh remote desktop furan. Taas micnaheedu waa port 3389 furan iyadoo la adeegsanayo nabab oo ah scanner network oo awood badan. Amarka uu isticmaalayo waa nab/b3389/192.168.10/24. Tani waxay u shaqeysaa nab iskaan garee dhammaan 192.168.1 network oo raadi system leh port 3389 furan remote desktop protocol bot. Daqiiqado yar kadib natiijooyinka way yimaadaan. Halkaas ayay ku jirtaa computer ku yaal network oo leh port 3389 furan. Sida aad arki karto, Nmap wuxuu helay dhammaan saddexda qalab ee ku xiran network-ga. Router-ka ama gateway-ga kaas oo leh port 3389, portka remote desktop oo xiran. Kim computerkiisa K sidoo kale leh port 3389 xiran. Iyo wax ugu muhiimsan, computer Windows ah leh port 3389 oo furan. Tani waa ku dhawaad si dhab ah computerka Sally. Hadda Kim wuxuu og yahay IP address-ka Sally. Taas waxay ahayd tallaabada ugu muhiimsan ee ugu horeysa. Dhab ahaantii weerar brute ah oo remote desktop ah oo la isticmaalayo Hydra. Taasi waa xogta kaliya ee Kim si dhab ah uga baahan yahay dhibanaha, taasoo ah IP address-ka computerka. Haddaba si dhab ah waa maxay Hydra? Hydra waa qalab awood badan oo jebiyo login-ka shabakada. Qalab si toos ah isku dayi kara malaayiin username iyo password isku darkooda oo dhan ah adeeg bartilmaameed sida remote desktop, SSH, FTP iyo kuwo kale. Si uu taas u sameeyo, Hydra wuxuu u baahan yahay laba shay: list usernames ah oo la isku dayo iyo list password ah oo la isku dayo.
Hydra wuxuu qaadanayaa mid kasta username-ka liiska ku jira oo wuxuu ku lamaaninayaa password kasta mid oo isku dayay inuu galo. Haddii bartilmaameedka uusan joojin ama xadidan isku daydaas, Hydra wuxuu ugu dambeyn heli doonaa xogta saxda ah haddii ay ku jiraan liiska. Ka fikir inaad isku dayayso furaha kasta ee keyring ku jira. Hydra wuxuu tan ku sameeyaa si aad u degdeg badan shabakada dhexdeeda iyadoo gebi ahaanba aan la kormeereyn. Ka hor inta uusan weerarka bilaabin, Kim marka hore wuxuu hubiyaa in Hydra ku rakiban yahay Kali Linux systemkiisa. Wuxuu furaa terminal oo si fudud u qoraa Hydra. Halkaas ayay ku jirtaa Hydra waa la rakibay oo waa diyaar. Haddii aan kor u rogno waxaan arki karnaa hagaha isticmaalka oo leh tusaalooyin. Aan si degdeg ah u eegno. Waxaan arki karnaa in Hydra isticmaasho xarafka yar ee L flag ahaan hal username ama L weyn si loo bixiyo liis username ah. Sidoo kale waxay isticmaashaa xaraf yar B si hal password ah ama B weyn si liis password ah. Ikhtiyaarada xarafka yar iyo weyn waxay noo ogolaanayaan inaan sameyno weerar brute force ah oo bartilmaameed ah ama ballaaran. Haddii aan hoos u rogno xitaa waxaan aragnaa tusaale isticmaal dhammaystiran oo xaaladan ah oo ku saabsan FTP. Taasi waa isla qaabka aan isticmaalayno, laakiin waxaan u bedeli doonaa RDP halkii FTP. Si Hydra si wax ku ool ah u shaqeeyo, Kim wuxuu u baahan yahay laba shay: liis username ah iyo liis password ah. LL caan ah oo tan loogu talagalay waxaa la yiraahdaa checklist. Waa ururin aad u weyn oo usernames dhab ah, password iyo pilot laga soo ururiyay, penetration testing, default credentials iyo database-yada la daadshay. Kim wuxuu hubiyaa haddii selectis horey ugu jiro kombiyuutarkiisa isagoo isticmaalaya find command. Caadi ahaan checklist wuxuu ku yaalaa share folder ama mararka qaar world list hoostooda. Sida aad arki karto, checklist ma aha mid la rakibay, sidaas darteed Kim wuu rakibayaa. Marka hore wuxuu sameeyaa sudo update si uu u cusboonaysiiyo package index. Kadib wuxuu ku rakibaa select list isagoo isticmaalaya sudo install select list. Marka la rakibo, select list wuxuu noqon doonaa ku rakiban kuna yaal gudaha world list folderka. Halkaas ayuu yaal. Hadda waa la rakibay aan baarno. Sida aad arki karto, wuxuu ka kooban yahay dhowr folders oo ay ku jiraan kuwa usernames iyo passwords. Folderyadan waxay hayaan liisyo kala duwan oo usernames iyo password caadi ah. Aan eegno folderka usernames. Waxay ka kooban tahay dhowr file text ah oo ay ku jiraan magacyo admin caadi ah iyo top usernames short list. Midka ugu dhammaystiran waa Zato.net 10 million usernames oo ah liis aad u weyn oo ku saleysan xog dhab ah oo laga helay data la daadiyay. Aan si degdeg ah u eegno anagoo isticmaalayna amarka cat. Sida aad arki karto, liisku waa aad u dheer. Waxaan joojinaynaa cat command-ka oo eegaynaa sida username badan oo ka kooban yahay anagoo isticmaalayna amarka word count. Waxay ka kooban tahay in ka badan 8 milyan interest aad uga badan inta aan u baahanahay demogan. Halkii waxaan isticmaali doonaa file aad u yar kaasoo ah top username short list. Aan aragno inta usernames uu ka kooban yahay. Kaliya waa 17 interest. Ku habboon tijaabo degdeg ah. Haddii aan furno cat, waxaan ogaanaynaa in Sally aysan ku jirin. Aan iska dhigno in Sally ku jirto liiska anagoo gacanta ku darayna. Waxaan ku furnaa faylka nano oo ku darnaa Sally. Dhab ahaantii looma baahna in lagu daro /Sally. Kaliya Sally ayaa ku filan. Oo waa la helay folder Sally waa lagu daray. Marka xigta, Kim wuxuu u wareegayaa password folderka si uu u helo liis password oo fiican oo uu isticmaali karo. Gudaha waxaa ku jira 10 file waxtar leh. Hal subfolder oo muhiim ah waa leak database subfolder. Waxay ku habboon tahay faylal password ah oo dhab ah oo laga soo ururiyay jebinta xogta dhab ah. Waxaan aqoonsanaynaa faylal caan ah sida ROGU5, ROGU10, Adobe 100. Demogeena waxaan isticmaalaynaa ROGU05 oo ah fayl fudud oo leh tiro yar oo password aad u caadi ah. Aan eegno adigoo isticmaalaya cat. Waxay ka habboon tahay password la saadaalin karo sida 123456 ABC123 I love you ama Monkey. Hadda waxaan diyaarnahay. Kim wuxuu haystaa liis usernames ah iyo liis password ah iyo IP addresska targetka oo uu ku helay iskaankiisa hore ee inta. Waa waqtigii uu bilaabi lahaa brute force attack iyadoo la adeegsanayo Hydra. Aan soo koobno. Kim wuxuu arkay in Sally ay isticmaalayso laptop Windows ah oo iyada loo marayo iskaankiisa Nmap. Wuxuu helay qalab ku jira network oo leh bot 3389 furan. Taasi waa botka uu isticmaalo remote desktop protocol. Iyadoo taas lagu saleynayo wuxuu hubaa in tani qalabkan yahay kombiyuutarka Sally.
hadda Kim wuxuu rabaa inuu bilaabo brute force attack si uu u ogaado labada username iyo password kuwaas oo uu ogolaanayo inuu si fog remote u galo PC-geeda isagoo isticmaalaya RDP. Si uu u fuliyo weerarka, Kim wuxuu isticmaalaa fulinta brute force attack qalabka awoodda leh ee Hydra. amarka uu isticmaalayo waa Hydra T4VA, L weyn oo uu raacayo liiska username-ka, P weyn oo uu raacayo liiska password-ka, kadibna RDP/IP address-ka dhibanaha. T4 wuxuu u sheegaa Hydra inuu socodsiiyo 4 login isku day isku mar. Tani waxay ka dhigaysaa weerarka mid aad u degdeg badan marka loo eego isku dayga hal password mar kasta. V wuxuu shidayaa verbose mode si aan u aragno isku day kasta marka uu dhacayo. F wuxuu u sheegaa Hydra inuu joojiyo marka uu helo username iyo password sax ah. Tani waxay badbaadisaa waqti. Haddaba aan socodsiino Hydra oo aan aragno waxa dhaca. Sida aad arki karto, Hydra hadda wuxuu tijaabinayaa isku darka kasta ee usernames iyo password-ka liiska aan bixinay. Mid kasta username, Hydra wuxuu isku dayaa dhammaan passwords-ka mid gudaha behind the scenes. Hydra wuxuu isku dayaa inuu galo target-ka isagoo isticmaalaya credentials kasta. Haddii isku darka midkood shaqeeyo, Hydra isla markii wuu joojiyaa weerarka oo wuxuu muujiyaa natiijada saxda ah. Hydra waqti dheer ma qaadanayo maadaama liiska username iyo password ay yihiin kuwo yar. keliya 19 usernames iyo 13 passwords. Taasi waa wadar ahaan 247 isku darka suurtagalka ah. oo boom kadib dhowr isku day wuxuu helaa login shaqeynaya. Waxay u muuqataa username-ka inuu yahay Sally, password-kuna yahay 123456, mid ka mid ah passwords-ka ugu caansan dunida. Hadda aan isku dayno inaan si remote ah u galno computer-ka Sally iyadoo la adeegsanayo credentials-kan. Si aan taas u sameyno, waxaan isticmaalaynaa qalab la yiraahdo X-Free RDP3 oo ah RDP client fudud oo looga talagalay Linux. Waa kan amarka uu Kim qorayo: X-Free RDP3/u :the username/p :the password/v :IP address-ka dhibanaha. Markaan socodsiino, waxaana la weydiinayaa haddii aan aaminsanahay certificate-ka. Waxaan qornaa yes. oo sidaas ayay connection-ku u samaysantaa. waxaana soo baxa daaqad remote desktop pops up. Kim hadda wuxuu helay access buuxa desktop-ka Windows ee Sally isagoo ka jooga Kali Linux terminal-kiisa. Wuxuu furi karaa Windows Explorer, wuxuuna dhexgali karaa faylalkeeda, rakibi karaa barnaamijyo sida Keylogres ama Remote Access Trojans, ama xitaa kormeeri karaa wax kasta oo ay samayso waqtiga dhabta ah isagoo isticmaalaya spyware. Waana taas. Tani waa sida hackersku u jabiyaan computer Windows ah oo furan iyagoo adeegsanaya brute force attacks ee Remote Desktop Protocol. Remote Desktop Protocol waa mid aad u fudud laakiin sidoo kale aad u khatar badan marka aan la ilaalin. qalab sida Hydra waxay muujinayaan sida ay u fududahay in la qiyaaso password daciif ah ama la isticmaalay marar badan haddii aadan qaadin taxadaro sax ah. Sida looga ilaaliyo weeraradan waa kuwan qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee ilaalinta. Ka hortagga brute force RDP attacks. Dami RDP haddii aadan u baahnayn. Isticmaal password adag. Dhagan geli account logout policy si loo joojiyo. Isticmaal multi-factor authentication. Ugu dambeyn, la soco logis si aad u aragto login activity shaki leh. Haddii aad u aragto videogan mid faa'iido leh, waxbarasho leh ama indho fur ah, like noo saar muuqaalka, channel-kana subscribe saaro.